inaha waddankana qiimo weyn ku lahaa oo shalay iyo duraad la kala aasay hargeysa lagu aasay waa marxuum siyaasi cali sandulle iyo marxuum suldaan cismaan cali kooshin waxaan ilaahay uga baryayaa inuu jannadiisa ka waraabiyo wax badan bay soo qabteen dadkooda u soo qabteen iyo dalkooda ehelkooda iyo reer Somaliland oo dhanna iyo saaxiibadoodna in ilaahay samariyay ma ka siiyo taas waa taas talabaad waxa weeye saaka waxaan doonayaa inaan ka hadlo arrin ay mar horena ka hadlay oo heshiiskan ay xisbiyadu galeen heshiiska waxaynu ka doonaynaa in heshiis galaan oo mar uun ay heshiiyaan oo doorasho noo qabtaan aynu dhowr iyo 10 sano ka doonaynay laakiin markaad eegto waxay qorshaysteen iyo heshiiskay galeen dee ma waafaqsana in dadka loo danaynayo amba sharciga dalka loo danaynayo ma waafaqsana sababtoo waxa weeye xisbiyada qaranka waqtigoodu waa 10 sano waxa siinaya law number 14 ayaa siinaya 10 sano oo marba ururada la furaya oo law number 14 ba sheegaya ururada waqtiga la furayaana waa 6 bilood ka hor waqtiga dhamaadka 26 December ayaa lagu dhawaaqay inay xisbiye yihiin sharciga 2012 26 December 2022 ga ayaa tigirkooda ku eegay waxa la rabaa markaa 6 bilood ka hor June 2022 ga in ururada la furo oo 6 bilood la sii tartamo iyaguna imka waxa qorshaysteen waxa sharcigu wuxuu sheegayaa ururadu waxa ku tartamayaan oo ku soo kala baxayaan doorashada deegaanka sida uu kala helaan iyaguna waxa qorshaysteen sida imka iyaga iyo commissionku ay isla dhigeen 2022 ga dabeeqadiisa inay doorashadu qabsoomi kartaba haday doorashada la yiraahdo la qabanaya macnaheedu marka intee u dhaxaysa June 22 ga iyo dhamaadka 2021 ka doorashadii la qaban kari waayay 9 sano ay joogeen iyadoo hal sano wax ka yar bil ay ka hadhay teeramkoodii inay yiraahdaan qabanaynaa de maxaa ku jira timir la ku jirtay maxaa ku jira waliba dadku way wareersan waliba xisbiyada mucaaradka inay ka jawaabaan balbar marka la gaaro 22 ga marka la gaaro tigirkiinu dhamaado maxaa la sameeynaya maxaa noqonaysaa idinku ma urura waxay jiibinaysaan cusub ma qodobkii yaraa ee 83 guurtida haysay shaabada ujeedadiisiiba laga leexiyay nin walo shaqadiisii qabsan waayaba uu ku dhufsan jiray ba ku dhufsanaysaan dadku waxay doonayaan in la qanayo halka shaki baa ku jira heshiiskiinu waxaan u aragnaa inuu ka dhex aragteen common interest idin wada faa'iido taasi waa taa dadku cadeyn bay u baahan yihiin waliba xisbiyada mucaaradka ah xisbi ruling party isagu juuq oran maayo laakiin xisbiyada mucaaradkii waa inay sheegaan bal waxa markay waqti tigirkoodu dhamaado waxay noqonayaan ilaa waa kuwan diiday dariiqii loo mari lahaa in urura lagu furo iyaga iyo ururada ay tartamaane taa sheegeen dadka u sheegeen talabaad waxa weeyaan sharciyadeena waxaad moodaa inay jaantaan raganto nin walba suu doono uu dhiganayo waxaan yara milacsaday sharcigan imaka doorashada ee baarlamaanka horyaala waxa qodobkiisa 6 wuxuu sheegayaa oo runtii aan la yaabay wuxuu sheegayaa komishanka doorashadu haddii doorashada deegaanku ay waqtigeeda ku dhici kari weydo sabab kasta ahaatee komishanka doorashooyinka oo la tashanaya xisbiyada qaranka ayaa u kordhinaya waa unconstitutional way constitution keena cid kaliya siiyay inay wax kordhiyaan waa guurta in golayaashii qaranka la doortay ay inamada yaryar ee la magacaabay commissionku ay u kordhiyaan dee wax meesha ku jira ma waa marin habaabin weyn anu waxaan qabaa taasi haddii u suura gashana in la arki doono inay iman doonaan
golayaal iyo madaxweyneyaan iyagu isu kordhiya in la helay dee haddaan sharcigii cidi ilaashanayn oon cidi ilaalinayn dee nin walba siduu doonu u dhigan taasi waa taas weeye war markaa waxa weeyaan war dee dadku iskama aamusnee waxa weeyaan waa laydin ixtiraamayaa food bay idin siiyeen saddexdiinna ururba xisbiba way idin ixtiraamayaan ina ixtiraamtaan oo wuxu sheegtaan oo qanacsaan ayaa loo baahan yahay arrimahaas mugdi weyn baa ku jira dad badan oo danaynayana way jiraanoo dee sharciga la jiiraya arkaya ta kale waxa weeyaan arrinkan kulmiye dad baa wax weyn ka dhigaya aanu kulmiye dee arrinkan ka dhexdhacay uma arko wax imika inoogu horeysa xisbiya horaa ka horreeyey xisbiyaduna runtii maaha xisbiya dadku wada leeyahay maaha markaan runta isu sheegno maynaan gaadhin waynu ku soconnaa maynaan gaadhin oo udubtii aanu asaasiyaashooda ka mid ahayd anaba tii berigii naga hor joogto la geli maysid wax dhibaatayna ma dhaceen maxaa la yidhaa ninkan wasiirka ina muumiseen waa tii waddan laga saaray la yidhi or adiga laguma baahna mid kalaa la helay waa tii laga cay waa caadi kuwana haddii iminka qaar la yidhi dee waar iska taga laydinma baahne anigu uma arko wax cusub oo inagu soo kordhay oo meesha waxa weeyaan innagii baan weli xisbiya yeelan marka xisbiyadeennuna maaha kuwo dad isku fakiro ideology kuma kala duwana waxay ku kala duwan yihiin ma jirto waa kursigaasun see loo fuulayo ayay ku kala duwan yihiin marka xisbiyadu ay leeyihiin wax ay ku kala duwan yihiin amba wax dad wada aaminsani ay xisbiga wada leeyihiin ayuu dee xisbi wada leeyahay noqdo ee kharashka ku baxaya la qaybsanayo subscription la bixinayo markaasuu dee xisbi yahay laakiin xisbi nin keliya intuu samaystay kharashkiisana reerkiisu bixinayo dee isagaa leh ma faysalba laga qaado ilaa 2002 ba haystay yaa ka qaadaya maxaa loo qaadaya isagaa leh marka waxa weeyaan waynu ku soconnaa xisbiyaha hagaagsan oo dadku wada leeyahay laakiin mar walba inta madaxdee joogta markaa ayaa waajib ay ku tahay inay dariiqay ku samaysmayaan ay raacaan oo dhabbadii dadka ku toosiyaan ayaa waajib ku tahay imika laakiin baryahan dambe intay heshiiyeen anigu mucaaradba umaan arkay inay heshiiyeen wuxuu sheegayo tilmaamayo baan arkay inuu tilmaamayo leeyahay wardee waynu imika dee heshiis beenne bal halkaasi waxbaa ka yara jiree si aa loo galo inuu leeyahay ayuu maan arkaya mucaaradad maan arkayn baryahan dambena ma jirtaba waxay ku faanayaanba heshiiskii inay heshiiyeen waad arkaysi ma garatay laakiin waxaa loo baahan yahay haddii dowladdu ay mucaarad weydo way dee waxay doontay samaynaysaa way iska tegaysa markaa dadweynaha ayay la gudboontay war mucaaridkii iminka mucaarid maahee dee sidii idinku dowladda a u toosin lahaydeen inay ka fikirtaan weeye